بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى. maanta waxaynu xalin doonaa mas'aladani soo socota. هذا نقول سؤال أقول تترك حمرونه ورقد يقدن كحساب ولا مركين نبطها هذه سلعتها بوابا ككوان برتا بالفر لقجر يحل حكت لقجر يلو بالحر يبراها إزجوجنا سلعجلا حال لو جبارن لقدر يا لو جبارن لقدر يسد حق لقجر يأفر يا لقجر يتدوى بحلم تاي إمر حق لو جبارن لقدر يا لو جبارن لقجر يلو حق لقجر شيء لقجر الشن وحلم تاي إمر وقر جواب تقاب كحق لو جبارن لقدر يا لو جبارن لقدر يدا حق لقجر يا لقدر يفاء وحلم تاي إمر أم كل عدي مرة haddaba masaladaasi waxay ka mid tahay xisaabadkii la isweydiinayay tartan aqooneedka bisha Ramadaan. Waxaa lagu siiyey pointi ama bar ku taala isla eka ama goobo dusheed ku taala. Goobadu waxay ka kooban tahay sida caadiga ah points fara badan buu isku tagay ka kooban tahay. Marka waxaa lagu siiyey pointi ama hal bar oo kamid ah bartaas oo qoran -1, -2. sidoo kale waxaa lagu siiyey baraha isgoysida isleegyadaani sidaan u qoran iyana x square plus y square k plus 3x plus 3x okay minus 4y minus 7 equal 0 oo isleegta hore ah iyo isleegta labaad oo iyana u qoran sidani x square plus y square minus 2x minus 5y minus 5 minus 5y minus 5 equal 0. okay sidaan caadiga ah aynu ognahayba circle-ku wuxuu ka kooban yahay waa points fara badan barahaasi oo bar kasta oo kamid ah loo qori karo sida tani x, y. marka saddex barood baynu haynaa. bar waa cayiman tahay waa -1, -2 qiimaha x waa -1 qiimaha y waa -2 laakiin baraha kale isleegid baa lagu siiyey. haddaba saynu xalino ama inuu shaqeyno waxaynu yeelanaa sidan soo socota. pointiga koobaad ama barta koobaad oo isleegtaani ah waxaynu ku daraynaa pointiga labaad ama barta labaad oo isleegtaan ah markaynu ku darno seerma leekaysinina balse labadaas point midkood intaan pointiga labaad oo kale ama isleegta labaad ayaan waxaynu ku dhifanaynaa doorsoome oo ema doorsoomahaas oo emta oo noqon karta yacni ani real number bay noqon kartaa. real number kasta ayay u taaganaan kartaa yani complex waxaa la diidayaa imaginary-ga laakiin real number way noqon kartaa wax doona noqon kartaa oo ani real number ah. marka labadaas isleegaan isku daraynaa annagoo select labaad ku dhifanaynaa doorsoome oo ema markaynu ku dhifano doorsoomahaas oo ema ayaynu soo saari doonaa qiimaha m. haddaba select waxaan haysanaa barta koobaad inay sidaan u qoran tahay x square plus y square plus 3x minus 4y minus 7 plus baynu dhihi marka m baynu dhihi doonaa bilaynu furaynaa kadibna select labaad haddana x square plus y square plus y square minus 2x minus 5y minus 5 intaas waxaa ku dhacsan in bilow soo xiriina equal 0 baan dhihi. okay waxaan ognahay in la siiyey point yani aan qaano qiimaha x iyo qiimaha y kaas oo ahaa sida aragtaan aan qada balbedelno pointi kaas oo qiimaha uu ahaa -1 qiimaha y-na uu ahaa -2. sidaas awgeed bar kasta qiimo kasta oo aan x ku arkayno qiimaha -1 baynu ku bedelaynaa yani meel kasta oo x ah -1 baynu dhigaynaa. sidaas awgeed waxay noqonaysaa -1 square baynu saaraynaa plus y maxaynu ku bedelaynaa iyana -2 iyana waxaa saaran square plus 3 x waxaan ku bedelaynaa -1 minus 4 y waxaan ku bedelaynaa -2 waxaa ka jiran -7 intaas waxaa ku darsan plus m ta qiimadeeda ma naqaan waxaan doonayno x kii haddana waxaan ku bedelaynaa -1 square plus y -2 ku bedel square -2 de x ku bedel -1 -5 de y ku bedel -2 -5 minus maxay 5 intaasina waxaa ku dhacsan maxay
intaasna waxay leegtahay eber. Okay, markaan intaan fududeyno halkaan -1 square garee 1 oo positive weeye plus -2 square garee waa 4 oo positive plus 3 -1 waa -3 -4 -2 isku dhacsan waa +8 data -7 plus m baynu soo qaadanaynaa bilfur -1 square garee waa 1 positive plus 2 square garee waa 4 positive -2 -1 waa +2 hadii la isku dhifto -5 -2 na waa +10 waxaa ka jaran -5 intaasi waxay leegtahay maxay eber. markaan isku darno labadani waa 5 labada marka isku darno waa -10 hadii la kala jiro maxaa soo baxayo halkan waa -10 waxaad ka goynaysaa +8 waxaa soo baxay -2 waxaad ku dartaa +4 waa +2 1 kuwaas u gey waa 3 inta markii la fududeeyo waxaa ka soo baxay 3 waa positive plus baynu dhihi doonaa 1 plus 4 waa 5 plus 10 waa 15 plus 2 waa 17 minus 5 na waa 12 marka 12 kaas dibadda waxaa ugu dhacsan m oo positive saas awgeed waa 12 m baa soo baxaysa intaas waxay leegtahay maxay m bay leegtahay intaas maadaama m ay leegtahay markani waxaan yeelaynaa inaan soo saarno qiimaha m markaan waxaan wareejinaynaa maxay 3da waxay ku wareegaysaa -3 ilaa soo hadii laga jaro waxba soo kordhinaa -3 le saam u sahlan marka dhinac kasta waxaan u qaybinaynaa 12 hadaba waxaa soo baxaya 3 oo la hoos dhigay 12 oo minus ile minuskaas 3 ga wata intaas waxay leegtahay 3 u qaybi waa 1 halkana 3 u qaybi waa 4 horena maxay waxa ugu dhacsan minus ugu dhacsan sidaas awgeed variable-ka inuu soo saarnay oo ema qiimihiisu waa 1/4 oo calaamadiisuna ay tahay minus. inta markaad ila fahamto kadib waxaynu yeeli doonaa inaanu soo qaadano maxay isleegyadii aynu isku daraynay sidii aan u soo qoranaynaa pointiga koobaad oo isleegta koobaad waxaanu ku daraynaa maxay isleegta labaad oo laakiin hore maxaa uga dhacsan m baa uga dhacsan intaasna waxay leegtaan dhigi doonaa maxay 0 haddaba tan ujeedkan ka leenahay markaan ka leenahay waxa weeye isleegta qaabka loo qorayo maadaama ay yahay x square plus y square plus dx plus ey plus f equal 0 marka qaabkeen rabnaa inuu qorno marka isleegta hore waxaan haynay koobaadna waxaan la siiyay x square waa isleegtii labada isleeg aynu isku soo daraynaa waa x square plus y square plus 3x plus maxay 3x minus 4y minus 7 plus k meeshaan qorayna marka ama m aan dhahan horta mid ku sheegay m tani maadaama ana real number noqon karto variable-ka doonta u qaadan kartaa mesela waxa u qaadan kartaa k waxa u qaadan kartaa m waxa u qaadan kartaa doonto beta waxa u qaadan kartaa alpha waxa u qaadan kartaa lambda waxa doonto u qaado iska variable marka -7 plus m mt waxaan ku bedelinaa markaan -1/4 marka minuskan pluskan ku dhacayo markaas maxay ku noqonaysaa waxa ku dhacayo minuskan kan baas waxay noqonaysaa markaan minus yani plus ayaa halka ahaa laakiin pluskan waxa ku dhacaya minuskii m2 ay wadatay horgalaa tirada m-1/4kii soo soo minus bay noqonaysaa marka fmtan jeniya halkaas waxaa leeyahay marka 1/4 kadib una focus marka waxa ku dhacsan isleegti labaad taas oo u qoranayna x square plus y square minus plus y square minus 2x minus 5y minus 5 intaasi waxay leegtahay maxay 0 inta markaan joogno waxaan yeelinaa imika qaybta hore taas ugu soo celiyo x square horta mid aan ku sheego haddaan soo celiyo lacala x square plus y square plus 3x minus 4y minus 7 inta markaan soo celiyo on farqan ama rubucan aan ku dhufto inta wax u noqon doona hoose dhamaantood hoose 4 bay yeelan doonaan markay hoose 4 yeeshaan waa inaan intaas 4 kaasi ku soo dhufto isleegta dhinaca jirta yani x square plus y square plus 3x minus 4y minus 7 wana 4 ku dhufta saas awgeed haddaan iska fududeynaya waxaan dhihi doonaa maadaama haddii wankaas sareeyaha lagu dhufto qaybtaas kore qaybta dambe inuu waxba ka bedelaynin 4 kan waxaan ku dhufanaynaa inta hore haddaba 4 ku dhuf x kani waa 4x square 4 ku dhuf y na waa plus 4y square
plus 3 ku dhifo 4 na waa plus 12 of x minus 4 ku dhifo minus 4 y ku dhifo 4 na waa 16y laakiin calaamadu ma 4 kaliya ku dhifo calaamadu waxa bedeli mayno had 4 ku dhifo 7 na waa 28 minus 1 saraya maadaama yahay 1 kaas oo minus qaybta dambe ee bisha ku jirteen ku furayna marka waxay noqonaysaa minus x square minus ku dhifo hadana y waa minus y square oo positive maadaama ay heeday minus ku dhifo hadana minus 2 na waa plus 2x baa ku dhaxsan minus ka ku dhacaya hadana waa plus 5y minus ka ku dhifo minus kaasina waa plus 5 intaasina waxay leegtahay 0 markani waa simplify no soo fudaynayna markii fudaynayna marka wixii x square iyo wixii y square wax noocaas soo raadinayna wixii like termska 4x square waxa markaas marsi x square soo ma way kala jirmayaan waxa soo haray 3x square barka ku soo haraysa plus 4y square iyo minus y square ina waxa ka soo haraysa waa plus 3x square plus 12x ka iyo plus 2x ka anu isku barayna waa maadaama plus yihiin waa plus 4 iyo 10x minus 16y iyo plus 5y way kala jirmayaan waxa soo baxaya minus 11y minus ka tirada la qaadanaya okay wax kale inoo soo haray maxay waxa kale inoo soo haray waxa weeye minus 28 ka iyo plus 5 ka maadaama kani minus ka wata tir ahaan muuqaalahan waa si weyn yahay yarbe xalana waa minus kala go waa 23 intaasina waxay leegtahay 0 hadda habkii u qorayay wali ma aanu gaarin waayo x square ka hadda isla sidaan sax way ku tahay laakiin habkii u qorayay yiri sidaan ma aanu ahayn wuxuu ahaa x square plus y square marka x square ka rogalihiisu maadaama uu 3 yahay dhinac kasta waxaan u qaybinaa 3 y-na sidoo kale waa 3 soma waa dabeecad lagu yaqaan circle ka marka meel kasta dhinaca guud ahaan waxaan wada qaybinaynaa maxay 3 baan u qaybinaynaa marka 3 u qaybino laba 3 isla bixi doona waxa ku soo yar doona x square laba 3 isla bixi doona waxa ku soo yar doona plus y square halkan haday waxaan ka dhigay miya y ba wax x baynu ka dhigay no x maana y weeye halkaas maxay waa y plus y square plus baynu dhihi doonaa 14 waxaan u qaybinaynaa idina 3 waxa ku dhacsan markaas x plus 14 loo soo dhigay x plus 14 loo soo dhigay 3x weeye minus 11 sidoo kale waxaan u qaybinaynaa 3 ina waxa ku dhacsan y 3 hada u qibno 2y over all divided by 3 sidoo waxa lagu yiri saan kor u fiirso 2y oo loo wada qaybiyay 5 yani waxa dhigan tahay in lagu yiraahdo kale 2y 2 over 5y saas kale lamid saas awgeed sida fudud sidaan u qoraynaa minus division waxa leenahay 23 la hoos dhigay 3 iyadoo wax variable ma wadato intaasna waxay leegtahay ever weeye marka baan isla dhigisano jawaabta soo baxda ugu dambeyntii goobada ka kooban barta bil fur laga jaray hal hakad laga jaray labo bil xir iyo baraha isgoosyada islaagyada xa laba jibaaran lagu daray ya laba jibaaran lagu daray saddex xa lagu daray afar ya laga jaray toddoba waxay la micno tahay eber iyo xa laba jibaaran lagu daray ya laba jibaaran laga jaray laba xa laga jaray shan ya laga jaray shan waxay la micno tahay eber uqor jawaabta qaabka ah xa laba jibaaran lagu daray ya laba jibaaran lagu daray da xa lagu daray e ya lagu daray f ama fa waxay la micno tahay eber jawaabtuna waxay noqonaysaa xa laba jibaaran lagu daray ya laba jibaaran lagu daray 14 la hoos dhigay 3 xa laga jaray 12 la hoos dhigay 3 ya laga jaray 23 la hoos dhigay 3 waxay la micno tahay eber